السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا خالقي يقول دمانتين ملبو الدنيا ذا أتك جوكتان لاشين أباري ربرواقو إذن دهيسا كلان تو عنو وناكسان ده هادي معرفتي almost 5 years aan gabdhaha sidaydoo kale wejiga kasoo go'go'ay soo caawinayay xaajiyaasha Soomaalida habkaad ula dhaqmi lahayd idinka soo caawinayay. That is the biggest point aan la noolnahay. haddaan idinka soo caawinayay carfintii guriga, carfintii awood ku tubay haddaan intaasna idinka soo caawinayay yaa qaar kaloo badan. soo maantay kulama ahan in haddaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya, na federaalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya haddaan noqdo ma idinla tahay inaan idin caawi doono? No, hadday noqoto you're in the hell, I'm gonna fire you. Okay, calm down. isdeji. qofku diidi kartaa ma jirto, waayo qofka xigtaaba malahan. waxa waay mataqaanaa madaxweynaha cusub ee 2021ka waa Bariira Barwaaqis Beauty Kitchen and Glamour. waa soo abtirsaday tasid abtirsiino kale la iga rabaa ma jirto. Bariira qabiilkaagu waayo, Bariira abtirsiinadaada halkeebaad gashay ruuxi dhihi karaa ma jirto. waan soo abtirsaday. waxaa la yiraahdaa anoo magacayga la yiraahdo Bariira Barwaaqo Beauty Kitchen and Glamour advisor. intaas anigoo ayaan waxaan isku soo taagi doonaa, iskuna soo sharixi doonaa oo masharixiinta Soomaalida isku soo sharaxday aan u sheegayaa in Bariira oo loogu daray Barwaaqo, loogu sii daray Beauty, loogu sii daray Kitchen, loogu sii daray Glamour, loogu sii daray advisor. waa soo abtirsaday. abtirsinadeedu halkaas ay gashay, advisor ayay gashay inaan isku soo taago madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya. taas oo haddaad ii soo doorataan balan aan idinkaga qaadi doono from bottom to the top in ay xukumi doonto haween oo raggi dhan la casili doono haddii Allah subxaanahu wa tacaala qadaro. ragga baarlamaanka xinna aan u saari doono ay iska maartay meeshaas ay ku noqon doonaan rag maartay la fayrgaray ma dhihi kariye intaasay soo taagnaayeen rag laga dhigay howlgab. qofta markii howlgab laga dhigo way fadhiisanaysaa, waxbay iska qaadanaysaa, lacagteedaas howlgabnimo ayay qaadanaysaa. soo maahan iyaga meeshaas ayaan dhigaynaa. laakiin maantaad aniga isoo doorataan baarlamaanku dhan wuxuu noqon doonaa dumar. haddaa reer qansaxka aad tihiin dumar baa soo dooran doontaan. haddaa reer qurac aad tihiin dumar baa soo dooran doontaan. haddaa reer jawaan tihiin qurac baa gabar baa soo dooran doontaan. haddaad maaragtay reer malay aad tihiin gabar baa soo dooran doontaan. waa idiin dhameeyey. aniga waxaan dhashay 1900 ebertii. waddanka colaad ma jiri doono. dee waxaa jiri doonto waxay tahay waa nabad. waayo Bariira Barwaaqo meeshay soo gasho Barwaaqo unbaa oolaa doona oo mid walbo maaragtay iskibriyaba gambarle loo dhigi doonaa, huruudle u marihaynaa iyo cusbar iyo qasil aa loo marinaa, gacmahana wuu soo taaganaa, xinaa loo saaraa, meel fadhiisaa la dhahaa. xinaha caytan maahan. markanu Suudaanta maalintaas habeenkaas arooska ayaa ninka xina loo saara. ma fahantay? marka waxa waay micnaha xinaha markuu kuu qoyan yahay saasaad leedahay. soo maahan dad baa ku babinayo. marka dadkii hore
oo ragga ahay xina baan u saari doonaa qasil baa loo marin doonaa meel baan fadhiisan doonaa dee wixii gabarana dhaxday xiro doontaa wixii ay dhiin way keeni doontaa haddii al yiraahdo soo gabar walbaaba maaragtay reer qansax reer qurac haddaad ka dhalatay adiga waxaa noqon doontid baarlamaanka aad baa ka hadli doontid xitaa militariga ilaalin doono maaragtay villa Soomaaliya iyo kulligood waxay noqon doonaan dumar oo wada indha shareeran maaragtay oo wada kala arag oo maasha Allah tabaarakallah ayay noqon doonaan soo haddaad isoo doorataan waxaan idiin ballan qaadayaa anigoo ku abtirsada qabiilkaygana uu yahay barwaaqo kitchen beauty glamour inta kala wada DIY plus advisor home glamour beauty glamour hair glamour waa kasaa haddaan tintii aan idin kaga dhigay haddaan wejigii aan idin kaga dhigay haddaan gurihii iyo udgoontii idin kaga dhigay wadankiina intaas ayaan u sameyn lahay oo saas ayaan u qurxinaa soo ma ahan soo marka waxaan u baahanahay in madaxweynaha dimuqraadiga Soomaaliya barwaaqo beauty and glamour kitchenki kusida inay idiin noqoto su'aal haddaad ka qabtid oo aad su'aal isu weydiinaysid aad baan ugu faraxsanaa lahay wixii wadanka aan u qabanayo waayo markaan tartamayo waxaan rabaa ragga ila tartamayo iyo gabadhii Soomaaliyeed oo ila tartamaysaaba in aan ka weyn gareeyo oo waxyaabaha iyaga ay qabanayaan inay soo sheegaan waxyaabaha aniga aan qaban doonana inaan sheego so ma ka sii hor dhacayay oo waxa laga yaabaa dad badan inay qishka iga qaataan haddii la rabano laakiin markii adinka isu weydiisaan oo ay ugu tiraahdaan bariiro wadanka maxaad u qabanaysaa haddaan madaxweynaha aan wadanka ka dhigno maxaa wadanka u qabanaysaa markaas baan waxaan qabanayo idiin soo sheega markaas baa waxaad dhihi doontaan bariiro hee ma ku dooranayno in istaashid bariiro hee waa ku dooranayna waad istaashaa waxaana fiican qof marka wax ku darsanaysid qof aan hal qabiil ka soo jeedin hal qabiil kama soo jeedin Soomaali baale haddaan hees waxaan ka cabsoonaa inaa oo miraayadda fiirsanaysan ay jabto waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofba xikmad ayuu siiyey aniga xikmaddii oo heesta waa la iga qaaday waa la ii diiday oo xikmaddaas la ima siin inaan heeso laakiin xikmaddii aan wax ku maamuli lahay ayaa maskaxdayda ka butaaciso sida webi burqan oo ka soo dhaha sida alaabtan idin tusina idin dhahaye alaabtaydan maaragtay waa webi ka soo burqanayo diamondki webi ka soo burqanayo maxay ahayd sheegayna dahabki marka gabadhii maaragtay xoogaa is dhahaysa dahabaan u baahanahayna ha iska soo sheegato waa loo soo diraa saas marka diamondkaas iyo dahabkaas soo burqanayo maskaxdan wisdom ayaa ku jiro oo 1900 ebertii ayay dhalatay marka wiil yaroo hadeertan lifeka ugu horyahay oo maaragtay faqiir iyo taajir tuna soo arkin waxna dareemi kareenin idama xukumi karee waxa idin xukumi karo waa qof baahi soo aragtay qof bugto soo aragtay qof caafimaad soo aragtay qof taajirnimo soo aragtay qoftaas baa idin xukumi karto oo waxay idinku xukumi kartaa waxay tahay markaad tiraahdid jaala president meeshas baa xanuuna wuu danqana jaala president faqiir baan ahay wuu soo xasuusana jaala president taajir baan ahay wuu ku xasuusana xitaa haddaad aad taajir aad tahay meelaba in kale meeshas inta aad kale wuu kula fahmaa laakiin marka faqiir soo ahaa jirtay oo taajir nima aad rabtid inaad beegsatid oo tiraad jaala president taajir baan ahay wuxuu ku leeyahay adiga waaridka alla jannay adigoo taajir baa wax iga soo doonanaysa niyoon iga hor dhaqaaq oo markuu kugu fiican yahay haddii kale il cadaawaa lagugu fiirinaa
marka uu faqiir soo ahay oo aad tiro jaal president faqiir baan ahay wuxuu ku leeyahay adii waaridka alla janne anaa faqiira maxay iga soo doonaysaa way fahamta soo maaha maxaa dhahay ii sheeg intaasoo dhan hadduusan la soo dirsin madaxweynayaasha aniga ila tartami doono haddii intaas uusan soo ahaanin dee ha dooranina soo marka aniga isoo doorta waayo aniga baahin waa soo arkay bugtan waa soo arkay caafimaad waa soo arkay taajirnimona waa soo arkay intaas dhan waa soo arkay marka soo idiinma rano qof wax walba idinla fahmayso oo haddaad tidhaahdaan waan baahannahay oo waxaa kasii xigta waxay tahay yacni dalaan dalkaaga ahayn dareenku joog waaye dulli ku joog darxumaan u diloodaye maalintaad isoo weydiisaan oo aad tidhaahdaan jaale presidentaha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya maxaad noo qaban doontaa markaad tidhaahdid ayaan idiin sheegi doonaa waxyaabaha idiin qaban doona haddaan hadda idiin sheego waxba igu soo aniga dhan waa burburqanahe ya hadda idiin sheego xoogaa qishkii baa layga qaadana in qishka la iga qaatana ma rabiye de waxaan idin leeyahay kulanti wacan oo wanaagsan yaa waay qofta aad dooranaysaan waa bariira barwaaqo beauty inglaamar DIY and advisor intaasoo dhan ayaan kasoo jeeda oo qabiil ah ka waran soo ani idinkama wada fiicini qof hal qabiil kasoo jeedo soo kama fiicini waayo glaamarkii aan u hiilinaa waxaan u hiilinaa maaragtay maxaa la ii sheegay beauty waxaan u hiilinaa maaragtay udgoonkii afrida baa u hiilin doonaa ya isoo doorta oo hal qabiil kaliya aniga ma ihi qofta marka hal qabiil kaliya ta qabiilkeeda la fiirsanayso samaha that's true so ya madaxweynaha noqon doona aniga bariir barwaaqo biyuure ayaa idiin noqon doonta don't worry haddaan Chinese u ekaa iyo haddaan Malaysian iyo aan u ekahay ha kasoo hadlin waxa aan u ekahay waayo Soomaali baan ahay maxaad u jeedaa qoftii gurigeeda laga helo ayaa madaxweyne noqon doonto qoftii gurigeeda laga helo ayaa madaxweyne noqon doonto soo waxaan idin leeyahay Soomaaliya hal noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.